السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحاب سو دوادا معلومة كدib waxaa dhalan doona sanadka 2025 ilaahay nabad qab hanu gaarsiiyo waana sanad altcoin season ama xilli ay dhaqaaqayaan lacagaha altcoinska marka si ay isu ogaan altcoins waxa galayna mid kamid ah applicationada laga maalgashado lacagta cryptada oo Binance gasaan soo galno waxa aragnaa lacagtan bitcoin-ka oo hadda maraysa $96,000 marka dhammaan lacagahan kala soo raaco ay ka dambeeyo bitcoin-ka waxa la isku dhahaa altcoins tan hadda waqtigeeda waa dhamaaday oo way tagtay lacagtan bitcoin-ka ilaa hadda waxa maraysa $96,000 bishii ugu dambeysay kale waxay gaartay ilaa iyo $107,000 marka tan waa ku deysay sanadkan gudihiisa waxa la rajeynayaa 2025-ka ee soo socdo ilaa inay gaari karto $180,000 adii lacag $200,000 ku dhow marka altcoinsadana hadda fursad bixinayaan oo hadda bitcoin-ka kala hadda marka la ku noqono ana fiirina meesha ugu hooseyso kale all time low-geeda waxay soo martay 0.04 xilli ay ahayd 2010kii maantana waa aragtiin inay gaartay ilaa $108,000 marka waxaa jirta fursado badan oo suuqan u bixinaya cryptada oo haddadan laga faa'iideysan karo la maalgashan karo hadda Dogecoin-kan oo kale waa 0.3 oo kale aada loo maalgashan karaa waa coin mustaqbal fiican leh sidoo kale salaanahan oo kale coin mustaqbal fiican leh waa hadda $189 mar ama $190 iska dheh waa wali coin la maalgashan karo dadku waxay isticmaal gashan karaan sidoo kale XRP-gan waa coinsada aad isha loogu hay sanadkan oo kamid yahay dhaqaaq fiican sameyn karaan ilaa mustaqbal fiican uu leeyahay oo shirkadeeda hadda projectyaal weyn ay wadaa coina cusubna way soo wadaa marka hadii hoos u sii degno kale kardaanahan oo kale hadda waa 0.8 waa coinsada ayagana isha lagu hay dhaqaaq fiican sameyn karo marka tusaale ahaan hadda kardaanahan soo qaadanoo kale 0.8 oo hadda maraa hoos marka tagnaan all time high wuxuu gaaray ilaa $3 marka sanadkan 2025 waxa la rajeynayaa shay walbeeto ama coin walbeeto all time high ama meesha ugu sareysa uu gaaray inuu dhaafi karo tusaale ahaan coin-kan hadda daarman inaan maalgashano 1,000 xabo ka gadano 1,000 xabo meeqa lacag ah nooga kacayso maxaana ka faa'iideynaa marka si midaas aan ogaan waxa aadina calculator-ka coin-kan hadda sala socon wuxuu maraa 0.8 times 1000 aleenahay $800 ay noqonayaan marka $800 marka hadda ku maalgashano oo 1,000 xabo ah helno 1,000 xabo marka hadii $3 uu gaaro ka waran 1,000 waxa ku dhufanaynaa $3 uu gaaray waa $3,000 $800 gasho $3,000 na faa'iid marka hadii coin sida kale ayagana sii firfiirinay fursad ay ka banaan tahay qad surging oo kale hadda marka ku dhufano waxa jira coins badan oo haddan raqiis ah oo la maalgashan karo tusaale ahaan hadda gaalahan oo kale ugu horeeyo gala wuxuu marayaa 0.03 marka hadii aan ku dhufano meesha ugu hooseysana aadna all time high wuxuu gaaray meesha ugu sareysa 0.8 ad $1 ku dhawaaday sanadkan marka 2025 ilaa $1 inuu gaaro waa la qiyaasayaa oo all time high 0.8 ku dhaafo $1 ay wax la jira ilaa $2 inuu gaarana waa suurtagal marka hadda coin-kan oo kale ina asna 1,000 xabo ka gadano meeqa qarash nooga kacay marka waxa ku noqonayna calculator-ka 0.03 times 1000 aleenahay ama ever 3 oo lagu dhiftay $1,000 soo baxday marka 1,000 coin ee gaalaha ee marka gadanayno $100 bis hadda waqtigan la joogo ku fadhiyaa marka $100 marka ku maalgashano sanad kadib $1 iyo xoogaha uu gaaraa 2025-ka marka meesha uu yar ka soo qaadna inuu $1 bis gaare halkaas dollar kali markuu gaaro ala coin-ki $1 uu maraa 1,000 xabana ah heesano $1 waaye $30 hadda ku maalgasho bilooyin gudahoodna ku hel ilaa iyo hal sano gudahood ugu badnaan oo kale $1 marka waad dareemi kartiin faa'iidada intaas la eg sida looga qaban karo suuqan marka hadii aan ku sii noqono waxaa arki karnaa ayagana kuwa badan oo la maalgashan karo oo waqtigan raqiis ah qofka haduu maalgashtan uu aad uga faa'iidi karo marka coinsidan $1 ka hooseeyaan ay ku $1 $2 oo kale qofkii haddan ka faa'iideysto mustaqbal fiican oo ka sameeysan kara sidoo kale Ethereum-kan hadda maray asna 3,300 maray jabka xilli asna wuxuu soo maray uu ahaa 0.4 sa arki karno all time low-giisa marka wax walbeeto adduunkan xilli ay ka caayana jirto haddana altcoin season iska bilaaban rabo coinsidan yariiska dhan way wada kici doonaan marka ka faa'iideysta fursadan soo baxda
dhammaantiin waa mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.